wararka waxaa la dhinaca dunaasiyada caalamka oo dhan waa 28 May 2022 ku bilaabay sanadkan ugu horeysay ergeyga uu madaxweynaha Soomaaliya u magacaabay arrimaha bini'aadanimada ama gargaarka Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waxa uu sheegay in dad gaaraya 6.9 milyan oo Soomaali ah ay u baahan yihiin gargaar degdeg ah kuwaas oo uu sheegay inay biyo la'aan iyo cunto yaraan labaduba ay soo food saartay kadib markii sanadihii ugu dambeeyay oo dhan ay ku daba dheeraatay abaartu waxa uu sheegay in 90% dhulka ayuu yiri dalweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya iyo 6 degmo oo dalka oo dhan ah ay abaartu saameysay Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo isagu markaas la hadiyay ergo uu kala hadlayay arrimaha bini'aadanimada ahna ergeyga gaarka ay madaxweynuhu u magacaabay inuu asteeyay inuu isku xidho arrimaha gargaarka ayaa waxa uu sheegay in dadka wajahaya biyo la'aanta iyo cunto yaraanta lagu qiyaasay ayuu yiri ilaa iyo 7 milyan ku dhawaad ayna gaari karaan ayuu suurtagalnimo ilaa iyo 8 milyan bilaha soo socda soo hadalka u dhigay waxa uu sheegay in loo baahan yahay dadkaas la gargaaro isla markaana la caawiyo sida ugu dhaqsaha badan hay'adda FDA ka tirsan markaasi Mareykanka cuntooyinka iyo dawooyinka u qaabilsanaya markii ugu horeysay waxay soo faragelisay dhibaatooyinka hooyooyinka iyo waalidkaba soo food saaray aabayaashaba ee ku saabsan yaraanta iyo hoos u dhaca caruurta caanahooda ee baby formula loo yaqaano ama infant formula hadba u taqaani the US Food and Drug Administration FDA waxay ku dhawaaqday in ay sameysay waxay ugu yeedhay horkac weyn kadib markii ay hubisay in toddobaadada soo socda marshaf kasta la buuxi doono wasa hadalka u dhigtay Robert Califf oo madaxa guud ee hay'adaasi maamulo ayaa sheegay in ay tani noqon doonto jawaab degdeg ah oo dawladdu bixiso kadib markii dawladda aqalka cad ay gelgishay arrinta ayuu sheegay in la isugu tagay in la dedejiyo soo saarista caanaha isla markaana lagu qarqiyo marshafiyada iyo farmasiyada iyo meel kasta oo caana laga iibsado waan ka jawaabi doonaa baahida waalidka iyo waliba xiriirka qabsaday arrintan ayaa waxay timid kadib markii xaruntii weyneed ee Abbott Lab loo yaqaanay ee ku taalay magaalada Sturgis ee gobolka Michigan ay xirantay bishii February kolkii la sheegay in caanahooda laga helay bacteria taasoo sababtay in 4 caruur intay jiradaan labana ay dhintaan labana ay diiq gaaraan taasoo dawladda Mareykanka albaabada isugu dhufatay kadib markii laga shakiyay xaruntaasi si kastaba ha noqotee wuxuu sheegay in la sii day doono 300 oo kun oo markaasi kaanis oo sheegay inay noqon doonaan kuwa loo qaybiyo aagga loo yaqaan Elicare oo ay kamid tahay in magaalooyinka caruurta ka dhasheen oo dalka Mareykanka wada diiwaan gashan lagu qarqi doono maalmaha soo socda markaana ay waalidiintu ay wajihi doonaan ayuu yiri hoos u dhac dhinaca qiimaha iyo waliba sidoo kale helitaanka Mareykanka iyo gorsii horeysay waxaa lagu canaantay in arrintaasi gaar ahaan xukuumadda Biden ay ka gaabsay laakiin madaxweyne Joe Biden ayaa amar ku bixiyay in arrimahaasi laga jawaabo gaar ahaan baby formula halka nagala socotaan wararka waxaana dhinaca dunaasiyada Israa'iil ayaguna si hoose ku tagay markii ugu horeysay dalka boqortooyada Saudi Arabia ayaa dawladda Mareykanku daboolka ka qaaday safarkoodii Karine Jean-Pierre oo ah afhayeenka aqalka cad ee dalka Mareykanka weyneeda la yiraahdo ayaa markii ugu horeysay waxay sheegtay in isku xidhaha arrimaha bariga dhexe iyo qaaradda Afrika qaybteeda waqooyi Brad Mikigig iyo xubno kale oo la socda gaar ahaan sarkaalka sare ee arrimaha la talinta heerka sare Amos Hochstein ay la kulmeen saraakiil Sacuudiya kuwaas oo kaga wada hadlayaan wadaxaajoodkii ugu dambeeyay laba qodob ku saabsanaa doona qodobka koowaad ayaa ku tilmaantay in laga hortago dhaqdhaqaaqyada ugu dambeeya ee Iran ee gobolka ka wado kaasoo ah mid aad u halis badan oo dhanka ah ayaa la yiri ammaanka iyo waliba isku socodka gobolka iyo qodobka labaad oo ah ayaa la yiri in ay dawladaha raasi gaar ahaan Sacuudigu ay adduunka wax ka bedelaan shidaalkiisa si qaaliyoobaya isla markaana ay qiimaha dhimaan waxay sheegeen in arrintaas ayaga u taalo dame laakiin arrinta hore ay tahay arrin wadareed dawladda Sacuudiga ayaa doonaysa inay wax ku bedelato lacal hadii xataa ay dhimaso qiimaha ayna kordhinayso wax soo saarka shidaalka loo baahan yahay waxaana ay Mareykanka ay u muuqataa in arrin kale ay meesha ku jirto waxaana arrintaasi ay noqon kartaa sida xildhibaanayaasha ama dhinaca dunaasiyada markaan ka fiirino laba qodob waxa koobaad in Mareykanka iyo Sacuudigu ay ku kala bedelanayaan in Sacuudiguna uu wax soo saarka shidaalka badiyo Mareykankuna ay joojiyaan ama ay daahiyaan wada hadalka Iran oo aysan fududeyn ama in Mareykanku uu ku handadayo dawladda Sacuudiga Iran baan la heshiinana hada idinku jabi weydaan shidaalka si kastaba noqotay arrintan ayaa waxay ku soo beegmaysaa iyadoo dhawaana Iran ay u yeedhay safiirka wakiilka adanaha Mareykanka saarahan Mareykanka iyo Iran ma laha alaqaad dhinaca diblomaasiyadda Mareykan safiir ah ma joogo Tehran safiir Iran ahna ma joogo Washington DC sidoo dalalku markay saas oo kale yihiin dal kale ayay wakiishaan oo wakiil u ah marka dalka Switzerland safiirkooda waxa uu wakiil ka yahay danaha Mareykanka ee dalkaasi Iran uu kale yahay kadibna wasaaradda arrimaha dibadda ee Iran ayaa u yeedhay si ay uga cabato safiirka Switzerland
u fadhiya dalka Iran laakiinse Switzerland ka caawinaysa maadaama uu danaha Mareykanka ka wakiil yahay Mareykanka ayay ka cabanaysaa waxayna uga cabanaysaa markab Mareykanka la sheegay inuu qafaashay oo dhawaan uu ka qafaashay ayaa la yiri duleedka badaha iyo duleedka waxa la yiri biyaha dalkaasi Greek waxayna sheegtay dawladda dalkaasi inay ka xun tahay in ficilada Mareykanku ay wali yihiin kuwa halis ah oo ku barcadbanimada waxayna ka digtay Iran inay qir arrintaas ay gali doonto iyadoo ay markab soo qofala doonto Iran ayaa inta badan baryin dalalka reer galbeedka Mareykanka kamid yahay markay markab ka xiriirtaan ayaguna markab kale ay ka soo duudaan badweynta maadaama ay haystaan ciidamo aad u culus waxay sheegeen in markabkaasi uu shidaal siday isla markaana uu Ruushka uu siday laakiinse Ruushka iyo dawladda dalkaasi Iran ayaa lagu eedeeyay inay jabinayaan cilaaqaadka dhanka kale dawladda Greek ayaa waxay sheegtay inay halis ku jirto madaxbanaanideeda ammaankeeda iyo biyaheeda kadib markay ku tilmaantay in dawladda Turkiga ay iska bariisatay ama ay iska sii wadato waxay ugu yeedhay dhibaatooyinka lixaad kale ee dhinaca faragelinta sida ay sheegayso dawladda dalkaasi Greek waxay warqad ay u qortay oo dhowr bog ka kooban xogaha guud qaramada midoobay ayay kaga cabatay arrintaas warqadan waxaa la saxeexay 25 bishan waxaana lagu yiri sida muuqata way iska cadahay in dawladdaasi ay suubinayso handadaad iyo waliba in ay gaar isugu yeeshay in ay joojiso ama ay su'aal gelisay baa leeyahay jiritaanka madax banaanineed biyad iyo waliba jasiiradaha Aegean Islandska ku yaala ama Aegean waa badda yar ee labada u dhaxaysa iyo waliba jasiiradaha ku yaala ayay tiri haweeneyda leedahay Maria Theophili oo warqada ku saxeexneed oo ah madaxa ergada dawladda dalkaasi Greek u qaabilsan qaramada midoobay magaalada New York waxayna intaas ku dartay in ay ilaa iyo hadeerto ay dalkoodu ay sii wadi doonaan inay halgamaan labada dal ayaa dagaal toos aadi gaaray 2020kii laba sanadood ka hor kadib markay isku qabsadeen biyaha badda iyo waliba shidaalka ku dhex jira dawladda dalkaasi Turkiga ayaa dhawaan madaxweynaha wuxuu wacd ku maray inuusan dib ula sheekaysan doonin waxana uusan u weydiin doonin ra'iisul wasaare Mitsotakis oo ku tilmaamay in agtiisa ka dhintay wax la weydiin doonin waa soo hadalka u dhigay dawladda dalkaasi Greek dhanka kale waxay sheegtay in ay sii wadi doonto cilaaqaad wanaagsan ay la suubsan doonto dawladda Mareykanka saraakiil labada dalka oo tirsan ayaa waxa ay sheegayaan in ay labada dhinac ay sameynayaan isdhaxgalkii ugu wanaagsanaa iyo waliba dabcan arrintii ugu fiicneed ee labada dal ay wada sameyn karaan oo dhinaca kale hub iibsiga iskaashiga iyo waliba gargaarka ayadoo xilli xasaasi ah ay noo taageerada waa Greek daawashana qiimaha leh qodobka ugu dambeeya Pakistan waxa ay sheegtay in dhaqaalaheedu 2% uu booday oo kabcay kadib markii dawladdu ay xayirtay in ay alaabaha muhiimka dalka laga saaro wararku waxay sheegayaan suuqa Pakistan ee magaalada Islamabad uu koray isla markaana ay dawladdu sidoo kale ay la baxday ayaa la yiri taageerada si kastaba noqotee arrinta ayaa u muuqata ayaa la yiri inay wado u furi doonto barnaamijka dhinaca dhaqaalasiinta hay'adda IMF oo barihii ugu dambeeyay sameeysay ayaa la yiri lacag deena oo trapel ay ku daldalaysay dalkaasi dad badan ayaa se u arka inay tani noqon karto ayaa la kale oo dalkaasi lagu qaameeyo walow ay qaar kamid ah mas'uuliyiinta dalkaasi Pakistan gaar ahaan xukuumadda cusub ay doonayaan inay cadeeyaan xukuumadda cusub ee uu qabsaday Mr Shahbaz Sharif ayaa waxa uu doonayaa in uu tuunka ka saaro dadka dalkiisa oo ayagu markaasi barihii ugu dambeeyay oo dhan ku xamanayay